haddii la dhaho xorriyadda Soomaaliya yaa hormuud ka ahaa ama horseed ka ahaa waxaa la xasuusanayaa SSC Khaatumo haddii la isweydiiyo midnimada Soomaaliya yaa hormuud ka ana waxaa la xasuusanayaa SSC Khaatumo hal wax baa inoo dhiman in la inagu xasuusto horumarka Soomaaliya marka la isweydiiyo in la xasuusto SSC Khaatumo fursadaas weyn hortaala waxaan laga yaabaa maanta kuwa maalin weyn oo runtii deegaanka taariikh u leh hal sano ay ka soo wareegtay kacdoonkii barakeysnaa ee ay ku baraadhay bulshada SSC Khaatumo ma rabo inaan ka hadlo wixii jiri jiray iyo sida waxaan jireen waa lagu dheeraaday meelo kala duwanna waa lagaga hadlay laakiin inta aan fadhiyay waxaan isweydiiyay sanadka maxay idin qabsoomay haddaan inta aan ka xasuusto qodob uu sheego waxaan oran lahaa midnimo bulsho waxaan oran lahaa deegaankii oo xor noqday waxaan oran lahaa deegaankii oo markii dib loo soo weeraray isdifaacay waxaan ku dari lahaa amnigii gudaha oo inoo wanaagsan waxaan raacin lahaa qaab dhismeed maamul oo inoo dhismay waxaan ku dari lahaa dakhli ururin deegaanka ka bilaabatay waxaan oran lahaa arrimaha diblomaasiyadda iyo xidhiidhka caalamiga oo wax ka qabsoomeen iyo sidoo kale wada shaqaynta dawladda federaalka ee Soomaaliya oran maayo dawladdu weyn aqoonsatay laakiin waxaan leeyahay wada shaqayn baynu yeelanay kelmadda aqoonsi waxaa ka munaasabsan inagu uma jirteenu nahay waxeeda dhisatay shaqadeeda haysata laakiin cid kasta waxaan uga baahannahay oo ugu horeysa dawladda dhexe ee Soomaaliya wada shaqayn inta markaan ka gudbo haddana waxaan isweydiiyay waxyaalaha ugu muhiimsan ee inoo hor yaala mustaqbalka waa maxay sideedaba inaad wixii tagay ka waranto way wanaagsan tahay laakiin waxa ka wanaagsan waxa ku hor yaala iyo mustaqbalka inaad isweydiiso kana shaqayso waxa inoo hor yaala si makaasibta inoo xasishay aan u adkaysanno inaan difaaca adkayno oo ciidamada deegaanka ee difaaca ku jira kana war hayno la soconno la shaqayno sidoo kale inaan amniga gudaha suganno oo inta hadda inoo joogto aan sii xoojinno inaan ka fakarno inaan isku filnaansho maaliyadeed iyo mid dhaqaale aan gaadhno sidoo kale inaan ka fakarno ama ka shaqayno taabagelinta kaabayaal waxaynugu kordhin karaa sidoo kale inaan ka shaqayno in bulshadeena jilicsan ay ugu horeyso agoonta iyo danyarta iyo dadweynaha guud ahaan adeeg bulsho heli karaan intaa kadib haddii la dhaho xorriyadda Soomaaliya yaa hormuud ka ahaa ama horseed ka ahaa waxaa la xasuusanayaa SSC Khaatumo haddii la isweydiiyo midnimada Soomaaliya yaa hormuud ka ana waxaa la xasuusanayaa SSC Khaatumo hal wax baa inoo dhiman in la inagu xasuusto horumarka Soomaaliya marka la isweydiiyo in la xasuusto SSC Khaatumo fursadaas weyn hortaala waana karnaa labada qodob ee horeba waa ka shaqeynay midna awooyaasheen baa ka shaqeeyay midna inaga iyo aabayaasheen baa ka shaqeeyay inaan inagu maanta ka shaqeyno inaan hormuud ka noqono horumarka Soomaaliya inta kadib waxaan rabaa in ay ogolaataan inaan u mahadceliyo dhalinyaradii iyo haweenkii halganka bilaabay ciidamada xaqudarka ama saraakiil ha noqdeen ama ciidan ha noqdo sidoo kale inaad u ducaysaan una mahadcelino shuhadadii iyo dhaawacii dadka deegaanka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo agoonta iyo araamisha sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo jaaliyadda hoggaanka dhaqanka guddigii aaya ka tashiga 33
oo runtii aan odhan karo annagu markaanu nimid maamulka ilig ay liijiyeen oo inuu dhaco kaliya u baahnaa inaan ku soo gaadhnay